هاي سو قراعي صوتهم هاي تحليقا سنكا لا خير كلك السلام عليكم. وعليكم السلام قدومية صوم مروة دقة ما ها وامر ودقة waxa kula soo hadlay gudoomiye degmada صح marka dowladda waadigi mas'uuliyiinta sare ka mid ah وارن ee ahaa gudoomiyaha garabka haweenka وارن marka shir baynu leenahay صح sidaa daraadeed waxa laga doonayaa 8:00 subaxnimo صح xirbaaba ka harsan talabkii odayga quraacda ma siiyam saas kaga taga uu hurayaan iskaga taga waan u soo noqon bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa mahadsantihiin sida sharafta leh ay u soo ajiibteen baaqeeni waa ku mahadsantihiin waxa sidoo kale inala jooga xildhibaankii degmada oo isaguna saaka inoo yimi suu inoola xoojiyo hawshan ololaha nadaafadda xogayaha degmada iyo gudoomiyaha garabka haweenka degmada dhammaantiin idukuna aad iyo aad baa mahadsantihiin waxa sidoo kale isaguna inaga baaqsado safar nagaga maqan gudoomiyihii dhalinyarada marka taas waxay tilmaamaysaa sidaynu diyaarka ugu nahay hawsha aynu dadkii dalka u hayno sidaa daraaddeed waxaanaynu u baahanay in xaafadeennu wanka gasho soo dhammaanteen diyaar ma nihin aad iyo aad baa mahadsantihiin kulley soomaalidu waxay هلو حاجة لا حاجات قبضتي ده وهالكي waxaan tagay shaqadii ma yar tagay meesha waa laga yeeray شغل نوع ماده gudoomiyihii baa yeeray la wadanteena wadanka xil u haye قدوميها بقوم سنه بقوم ma xaajaada ay qabaan soo socdaan yar isku sheedaanka iska naaro ناب لو كان دانو قدوميها كرم waaya xaaj waaya imiga soo baxaya fadlan waxaan in telefoonada please inta la iska yara xidho ama saynin la iska geliyo shirkaasi inoo dhamaanayo waayo mas'uuliyiin culus baa nala fadhiya oo xildhibaankii degmadu ka yahay in kamid yahay kaalin laga yaraado xaajigan bila qurax kaga soo cararay weeyaan kulay dantaynu ummadda iyo qaranka u haynaa ka muhiimsan marka waxaan idin leeyahay aad iyo aad bay mahadsantihiin allah ha idin sharfo kulay waxaynu doonaynaa waa ogtiin mudanayaal iyo marwooyino maayarka caasimadda hargeysa wuxuu ku dhawaaqay in degmadii wanka gasha shahaado sharaf la siin doono loona aqoonsan doono degmada ugu horumarsan mashaariicaha muhiimka ay dawladdu bixinaysana qaybteeda ka qaadata markaa waxa sharaf iyo maamuus inoo ah in xildhibaankii degmadeennuna inala joogo maanta waa midaynu degmooyinka kala dheernahay aad iyo aadna waa mahadsantihiin sidaa daraaddeed ballanteennu waa shaqo waxaan kusoo dhaweynayaa horta xogayaa aan laba kelmadood siiyo maxaad ku daraysaa sidaan nagu amartay annagu waanu wadnaa wax walba diyaar bay noo tahay waanan haynaa aad iyo aad baa mahadsantahay haweenka iyo degmada anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha garabka haweenka gudoomiye wax walba diyaar bay noo yihiin haddaanu nahay dumarkana qayb la xaalle ayaanu ka qaadanaa inaanu bilicda wadanka soo saarno waxa kale aan halkan uga mahad celinayaa xildhibaanka oo nahay dadkii sida weyn uga qayb qaatay soo bixitaankiisa xooga aan neer kaftamane annagu dumar haddaanu nahay ragga waanu ka fariidsanahay taana kale wada ogtiin baan maleynaya aad iyo aad imikana waxaan ku soo dhaweyn doonaa haddii Allah awoodda leh ogolaado xildhibaankeenna qaaliga xildhibaan Yuusuf ku soo dhawow mudane xildhibaane bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaa sharaf weyn ii ah aniga oo ah xildhibaankii laga soo doortay degmada in aan maanta idinkala soo qayb galo kulankiinan waxa aan u socday in aan u xogagaal u noqonno haddaanu nahay golihii deegaankii la soo doortay siday howlu u socdaan waxqabadkiinna habsami socodka iyo ololaha nadaafadeed taas oo aan u soconno taasoo aanu isla qaadannay annaga iyo maayarka cusub ee la doortay inaannu horumarka caasimadda ka shaqayno aad iyo aad baa u mahadsantii shacabweynaha waxaa kaloon intaa ku darayaa ololaha ugu ballaadhan ee markii aanu ololaha ku jiray dadka ugu firfircoon hortii dumarkay haayeen taasna waa abaal aan u hayno iminkana waxaanu ka arkaynaa halkaa inay si weyn oo ragga ka qaalisan uga soo qayb galeen ololaha nadaafadda guddoomiyaha wixii xoga ayaanu kala qaadan doonaa waxaan u malaynayaa mas-uuliyiintiinnii inaad dhantiin dhammaantiinni taana shacabkana waxaan farayaa ku bogaadinayaa sidaa aa hawsha u wadaan inaad sii laban laabtaan inaad noqotaan
inaad noqotaan kuwa lagu daydo ee ha dhowto cid kasta oo halkaa timaada ay ku dayato muraadda la iska arkana noqotaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaa inoo ballana sidaa iyo sid ka sii qaalisan inaa hawsha u wadaan waa mahadsantiin sidaa daraaddeed horta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaankeenna qaaliga waxaan leeyahay Allah ha ku sharfo oo ha ku xafido dhammaantiin idinkuna waa mahadsantihiin insha Allah ballanteenu waa shaqo sidaasaana inoo ahaanaysaa weliba berritana waa khamiis barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen baan leeyahay kolley dee guddoomiyaha garabka haweenkuna haddaan ragga nahay way nala kaftanto waxay tidhi annagaa idinka fariidsan rag iyo dumarkii fariidsanaadaba loo joogi doonaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin shirkuna saasuu inoogu xidhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waar heedhaha gabadha xagee qabatay imika yaa gabadhan maalin walba kala haysa maalin walba bilaa quraac baa nagu dhacda xagee imika soo yaa xagee imika ku maqatay imika gabadhan maxay qabatay macnaheeda anigu gabadhan fahmi maayo habatan ayaa xaaji haadha barkaale xaaji lahayne xabaasud lagu siiyey maxaa weysinaya xabaasada shaydaanka iska laa maxaa la qalistaa 24 saacadood kale xagee ogeynan xil wadanka u hayo qeyrka xashiishka ururinaya wadankooda bilicdiisa soo saaraya halkan baad ka qaylinaysaa qoreecisi qaaqan badaysaadu maxay la qayliyaa lagu dhalxaaji maxaa kugu dhacay bisankee aniga mad xili hayn waan ku haya gabadhaadii baan ahay qoreex haday noqotona waan ku siinaa 24 saacadood wuxuu taagana waa adiga wadankana de waqtigiisa siinaya maxaa xagad maqlayn inaad raacdo xagad maqlayn de gudoomiyii bay yeersooniga xafiiska kala soo leeyahay ku sheegay maxaa kugu dhacay gudoomiyaha ku qoomsan qaba de ma yaada xaaji qaba war ma ku sheegay horta war ma ku sheegay gabadha ha gabadhiisan isugan dareer ku wada lahan karmayno maxaa ka galay iskoobahan iyo xashiish kii guriga maxaa taxash bir xariye ha wadankeenu dhisanna maxaa kugu dhacay wadankeedii adduunweynaha noo tartamayna naa wadanka naya badnaadada ma doonaynin muwaadinad baan ahay muwaadinimada anaa aqoon maxaa muwaadinimada ka maqan maxay tahay anaad muwaadinad ku tahay eeg muwaadinimada waa lagu sheegay waan wadanay xaaji hay muwaadinimada iskoobahaaga soo qaado wadanka aynu dhisano aynu qurux badan bilicdiisa soo saarno aynu hagaajisano wadanka maana xash qaada حد قادر حشيش كمية كبر دقيقة ما ساق هذا اللي ساود على ذلك يصير شيء بس كنا أيوة وركله وركله ما حاجي سانس كودار ونوين سكري ساسي رجع غير كأكو يهرر بودي يساوي الستيلسكوب ما أنا حش كورا مثلا بيرك كان دونا بيرك كان شغال مثلا حش كورا ما يبريسك هاي نوبة ضمبي هكذا بنقول حاجة بريسك قبل ما نكون شجع قولي جاي موادين أنا ورك هذا ديدي مايو لكن وضن كيجا إن أنا هرمركي سوسا صار كتليو عندك لا تشل ماي هذا يقول فرس إن ديار بنحكي ما يكفر ما على لكن كان حنا كم مجعابي إنه أنا جلست صوت شغلة صوم مهين ما يطلع حق دمية دقيقة كاري قاعد دمية دقيقة تمر فوق قبل سنة كذا هذا مدور ما وكيل قطع بس ما وكيل كاه وضن كيجا وكيلوها هاي الفريد بس يقول جالي ربما وضن كيجا مرة ساشة كذا لا فريد بطاي بالواي واحد يشاف بس بدل حاجة شو صار نسكودا واي بالقرع نص قرع الأبد ما لبنا قد شيء كوسينة يا قرع يوحب أنا كوسينة حاجة إخراع لكن ما أنت ضمبه وهاي قاعد وردنا زرودة فرلا تكسر كده حاجة ما واحد وسعته ما أنت تعطي سكوب قاضي يحشكله حاجة قرأنا سوادنا كا ما أنت بدأ مسحات سوق قاضي يرد وانت لو حطينا سكرينا أنا مرينا بس حضرنا قاضينا حنا هذا كلام وريا إلى حكرنا نقبل بريد أنا ورك فهم ما هي هو قصب واحد هو بكل قيء كل قيء هذه عندها واحد صار كذا هالمرة يقرأ هرت قرع بلسه كوسينة يا قرأ مو بيجي إلى حكرنا